بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلمة waxaanu qaadanaynaa saxaabiyadda lagu magacaabo salama. raggii ayaa cabbaar laga soo sheekeeyey, dhankii dumarka saxaabiyaadkaa wax yar la fiirinayaa. haddana salamata wamaa adraaka maa salama, maxaa ku ogeysiiyey salama waxa ay tahay? wax allaala waxa la tafqiimiyo la weyneeyaa loo yidhaahdaa wamaa adraaka. waa usluub in badan qur'aanka uu isticmaalo. salama saxaabiyadda lagu magacaabo wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiiyey maa salama salama waxa ay tahay? amaa abuuhaa aabbaheed fa sayidun, waa sayid, waa oday, waa nin madax ah oo min saadaadi makhsuum, reer bani makhsuum madaxdooda ka mid ah, almarmuuqiina ee la eegto, marmuuqiinta ahee la fiirsadee la arkee dadka ka soocan ayuu ahaa. wa jawaadun, saqi ayuu ahaa oo min ajwaadi alcarabi, carab kuwooda ugu saqisanee waxbixiya, almacduudiina ee farakutiriska ah. dadka farakutiriska ee tirada yar, ee dadka jawaadkii saqiyadee gacanta furan buu ka mid ahaa. xataa innahu, ilaa asaga kaana uu ahaa yuqaalu lahu mid loo yidhaahdo zaadu raakibi, raakibka zaadkeedii. zaaduraakib baa loo bixin jiro, saasaa loogu magacdari jiray. waa socotada sahaydeedii. lianna maxaa yeelay alrukbaana dadka socotada ah, kaanad waxay ahaayeen laa tatasawadu, midaan sahay soo qaadanin. sahay ma soo qaadan jirin idaa qasadad, markay u soo qasdayaan oo ay soo aadayaan manaazilahu, manaasishiisa, meelaha uu degan yahay iyo gurigiisa marka ay soo aadayaan. dadka rugbaanta ee safarlayda ah sahay la'aan bay soo bixi jireen. aw saarat, ama ay la soconayaan fii suxbatihi, suxbadiisa. safar asaga uu ku jiro hadday la saaxibayaanna sahay ma soo qaadan jirin, waayo intiisaa ku filneed dadka. waa aabbaheed. wa amaa zawjuhaa, ninkeeda, fa cabdullaahi bni cabdilasad ayuu ahaa. waa axadu alcasharati, tobankii mid ka mid ah, alsaabiqiina ee u dhaqaye u hormaray ila alislaami, islaamnimada. nebi moxamed markii la soo diray, tobankii nin mid ka mid ahee islaamka horgalay ayuu ku jiray. id wakti lam yaslam uusan islaamin qablahu asaga hortiisa ilaa abubakrin asidiiq, abubakrin asidiiq maahane, iyo wa nafarun qaliilun, koox yar, laa yabluq aan gaaraynin asaabica alyadayn, labada gacmood farahooda cadadan tiro ahaan. waa waxaan toban dhammayn macnaha. abubakar iyo in yaroo aan toban gaarayn labada gacmood farahooda haddii la tiriyo, tiro aan dhammayn ayaa islaamka galoo ka horeeyey. wa amaa ismuhaa, magaceeda fa hindu, hinda baa la yidhaahdaa, hindu. laakinahaa, laakiinse kunniyat, waxaa lagu kunyeeyey biummi salama, salama ayaa kunyo u ahayd. uma ka bacdi halabat, waxaa ka adkaaday oo ka qaalib noqday calayha korkeeda alkunyatu, kunyadii. maantoo dhan hindu haddaad leedahay qof fahmayaa ma laha. salama haddaad dhahdo dadkoo dhan way fahmayaan. aslamat, way islaamtay salama maca zawjiha, zawjkeeda micigiisay la islaamtay. fa kaanat, waxay ahayd hiya alukhraa, sidoo kale. hiya alukhraa macnaha sidoo kale waxay ahayd waaye ayadana. fa kaanat waxay ahayd hiya alukhraa sidoo kale min asaabiqaati, dadkii u hormaray ila alislaami aydan, islaamnimada sidoo kale sidii ninkeeda dadka u hormaro u horgalay ayay markaa ku jirtay. wamaa inshaaca, maba uusan faafinba, naba'u islaami ummi salamata wa zawjiha, salama iyo ninkeeda
islaamnimadooda warkiisa maba faafinba xataa haajad ilaa ay qaylisay ilaa ay guhaaday qaylisay qurayshun oo wamaajad ay kacday sidii hirka oo kale wajacalad quraysh waxay guda gashay tasubbu inay ku shubayso calayhimaa korkooda min nakaalihaa cuquubadoodii nakaalka iyo dhibkii ay ku hayeen muslimiinta yaa umu salama iyo sawjkeediina ay ku tilmaameen ay ku bilaabeen inay ku shubaan maa wax bay kaga shubeen oo yusalzilu dhaqdhaqaajiya ruxruxa assumma asilaabi dhagaxa sibsibka ah sallaxa iyo dhagaxa sibsibka ah ee adag dhagaxa adag wax dhaqdhaqaajin lahaa haddii lagu cadaabi lahaa kaasaa la dhadhansiiyey falam yadacufaa mana aysan daciifin kama daciifin walam yahina ma aysan taag darnaaninoo ma noqonin kuwa niyad jab ku dhaca walam yataraddadaa mana tadarudinoo ma noqon kuwa laalaabta oo labaclabac sameeyo amaad ka noqotaan iyo amaad isaga socotaan ma samayn intaasoo dhanba laakiin cadaabka lagu cadaabay cadaab adag buu ahaayo dhagxaanta haddii saa la yeeli lahaa way silsaalmi lahaayeen dhagxaantu wax ma dareemaan laakiin sida ayaguy aad ugu adkaysteen ayaa loola jeedaa walama shtadda markay ku adkaatay calayhimaa korkooda aladaa dhibkii waadina arasuulu rasuulkuna uu idmay salawaatu ullaahi calayh naxariisyaalka alle korkiisa ha ahaatee liasxaabihi asxaabtiisii uu u idmay bilhijrati inay hijroodaan ila alxabashati dhowlkii xabasho ay aadaan kaanaa waxay ahaayeen waa ayada iyo ninkeedii fii طariicati اlmuhaajiriin nimankii muhaajiriintii hijrada aaday kuwii safka hore oga jiray ee ugu horhoreeyey ayay markaa noqdeen madad way tagtoo way dhaqaaqday umu salama iyo wasawjaha ninkeediiba ilaa diyaari waxay aadeen ilaa diyaari اlgurbati diyaaro qarbi ah macnaha dhul shisheeye bay markaa aadeen dhul ay qariib ku noqonayaan oo aysan ayagu markaa deganin ku dhalanin wakhallafat waxay ku dhaaftay uga tagtay waraa'ahaa gadaasheeda fii makkata maka baytahaa gurigeedii bay ka tagtay albaadikha ee sarreeyey guri sarreeye waxaa loola jeedaa guri fiicanoo wax walbay u baahan tahay uu u yaalay bay ka tagtay iyo wacizaha sharafteedii ashaamikha ee sarraysay ayadana wa nasabaha nasabkeedii cariiqa ahaa ee xeel dheeraa bay markaa ka tagtay intaasoo dhan markay uga tagtay waxay aaday dhul ay qariib ku tahay cidna aan ka aqoon nasab fiican inay ka radatay aan la ogeyn guryaha iyo cisadaa inay leedahay aan la ogeyn ayay tagtay muxtasibatan ayadoo ku ajar xisaabsanaysa daalika arrintaa kullahu dhammaan cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaasoo dhan alla dartii bay uga tagtoo waxay ajir ka raadsanaysay ilaahay xaggiisa mustaqilatan bay ahayd tii yaraysanaysay lahu asaga fii janbi mardaatihi ilaahay raadiyaashadiisa marka loo barbar dhigo oo la dhinac dhigo waxaasoo dhan wax daciif ahoo agteeda ka yar ayay markaa noqdeen wa cala alraqmi ayadoo taasi ay jirto oo mimaa kii ah laqiyatu ay la kulantay umu salama iyo wasaxbuhaa intii ayada la jirtay oo min ximaayati najaashiyi najaashi boqorka lagu magacaabay ilaalintiisa ay la kulmeen waxaa kaloo sii jirtay nadara allaahu ilaahay ha iftiimiye fi ljannati jannada wajha wejigiisa waa najaashiye ilan wuu islaamay faqad kaana wuxuu ahaa ashawqu hilowga ilaa makata maka ay u qabeen oo mahbid alwaxyi waxyiga meeshuu ku soo degayay ah iyo walxaniinu iyo hilowgii ilaa rasuulillaahi rasuulka ay u qabeen sala allahu calayhi wasalam oo masdar alhudaa hanuunka meeshuu ka soo fulayay ah yafrii kabidaha beerkeeda mid xanuunjiya oo dilaaciya iyo wa kabadi zawjiha ninkeeda kabadkiisii beerkiisa farya saasay markaa ahaayeen asoo najaashi aad u ilaaliyey dhulkii ay tageenna ay kala kulmeen ximaayo fiican iyo nolol wanaagsan haddana mar walba shooqii ay u qabeen maka oo waxay ku soo degaayeen iyo hilowgay nebi moxamed u qabeen
oo axadkuu mastarkii ahaa ka imaanaya hanuunka beerkooda aad buu u dhaawacayay, xanuunkaa way qabeen, aad buu beerkooda u xanuunjinayay xanuunjin. uma intaa kadib tataabacat alakhbaaru, khabaradiibaa waxay isku soo gaargaareen oo isku soo dabagaleen cala almuhaajiriina, muhaajiriinta dushooda oo ilaa ardi alxabashati, dhulkii xabasha u soo hijrooday ayaa waxaa soo gaaray khabaro. qabarkaasoo ah bianna almuslimiina, muslimiinta oo fii makkata maka ku nool qad kahura inuu batay cadaduhum tiradooda. muslimiintii maka ku nooleed way tiro bateen. wa anna islaama xamzata, xamze islaamnimadiisa waa bin cabdilmuطalibe iyo wa cumar ibn khadaab, labadaa nin oo soo islaamayna qad shadda inay xoojisay min asrihim awooddooda. waayo cumar ibn khadaab iyo xamza oo laba geesiyaal ahoo gaalada la safnaa yaa soo islaamay intay xagga ku maqnaayeen. labadaa nin awooddoodii ay lahaayeen islaamnimadii ay soo galeen baa muslimiinta ku xoojisay awooddoodii. wa kafa in la reebay oo laga celiyey muslimiinta shay-an waxoogaa oo min ada qurayshin, qoraysh dhibkooda canhum xaggooda. hadalkaana waa soo gaaray. facazama waxay goosteen fariiqun koox oo minhum muhaajiriintii ka mid ahaa cala alcawdati inay soo laabtaan ilaa makata, makay ku soo noqdaan. marka horeba ciqaabkaa iyo dhibkaa gaaleed uunbaa ka waday meesha. haddiiba islaamkii oo xoogaystay adkaystay, cumar iyo xamsana ay soo islaameen, koox ka mid ah muhaajiriintii yaa waxay go'aan ku gaareen inay laabtaan maka. maka inay ku noqdaan ayay go'aan ku gaareen. yaxduuhum xaal uu u dhawaaqahayay ashawqu hilowga, waxaa u dhawaaqahayay macnaha xoolaha oo kale marka la kacaynayee xoolaha loo sii wado ceelka iyo meelaha la midka ah, waa loo dhawaaqaa oo waa loo gabyaa. gabaygaasay ku soo socdaan iyo heeska, ayaga waxaa soo kaxaynayay shooqii hilowga. wayadacuuhum waxaa u yeerahayay alxaniinu, hilowgay markaa qabeen. waayo in badan bay makana u hilowsanaayeen, nebigana hilow ay u qabeen. fa kaanat umu salama waxay noqotay ahaatay iyo wa zawjuhaa ninkeeda fii طaliicati alcaa'idiin, raggii soo laabtay fii طaliic alcaa'idiin, dadkii soo laabtay kuwa ugu horeeyey ay haddana markaa noqdeen. laakiinse sarcaana maa, si aad u dhaqso badan ayaa iktashafa waxaa u soo caddaaday alcaa'iduuna kuwii soo laabtay annamaa numiya ilayhim, wixii soo gaaray xaggooda oo min akhbaarin hadallo ah, kaana inuu ahaa mubaalaqan mid laga badbadiyey. sida ay u maleeyeen ama hadalka u soo gaaray maba u jirinba, mid lagu xeel dheeraadayoo la buunbuuniyey inuu ahaa yay si degdega ku ogaadeen. laakiin sarcaana maa, si dhaqso badan baa iktashafa waxaa u caddaaday alcaa'iduuna, raggii soo laabtay dadkii soo noqday, annamaa numiya ilayhim, wixii xaggooda soo gaarahayay oo min akhbaarin hadala ah, kaana mubaalaqan inuu mubaalaq iska ahaa, wax xaqiiqaa oo wada sugan ma ahayn fiihi kaa. wa anna alwahbata bootinta allatii taasoo wahabahaa ay ku soo boodayeen quraysh, almuslimuuna muslimiintii, bacda islaami xamza wa cumar, xamze iyo cumar islaamidoodii ka bacdina qad quubilat inay ku qaabilay kaga hor yimaadeen min qurayshin bihajmatin akbara, weerar iyo hajam iyo hujuum ka sii weynkii hore. markiiba xamze iyo cumar ay islaameen oo leslahaa hadda la degi doonaa, quraysh ayadana waxay sii adkaysay cadaabkii ay ku hayeen muslimiinta. wixii wayba ka sii dareenoo taasay markaa ogaadeen haddana arrintaa inaysan jirinba. faftanna almushrikuuna, mushrikiintu waxay sii barteen, waxay khibrad kale u sii yeesheen fii tacdiibi اlmuslimiin, muslimiinta cadaabitaankeedii iyo wa tarwiicihim cabsigelintooda. wa adaaquuhum waxay dhadhansiiyeen min ba'sihim, baaskooda xaggiisa, maa shay baa la dhadhansiiyey muslimiintii laa cahda lahum bihi, aysan u arkin min qablu horay, waxaysan horay u arkin oon horay u soo marin ayaa haddana la dhadhansiiyey. cinda daalika, markaa agteeda ayuu adina arasuulu, rasuulku idmay salawaatu ullaahi calayhi,
liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu u fasaxay biاlhijrati ila almadiina inay magaalo madiina u hijroodaan. facazamad waxay goosatay umu salama iyo wa zawjaha ninkeediiba waxay goosteen calaa an yakuunaa haddana inay ahaadaan awala almuhaajiriin muhaajiriinta hijrooda kuwa ugu horeeya firaaran baxsasho iyo la orod bidiinihimaa diinkooday la baxsadaan iyo wa takhallusan ka fakasho min ada qurayshin qoraysh dhibkeeday ka fagtaan. haddana ayada iyo ninkeediibaa go'aan waxay ku gaareen inay dhaqsaba madiine aadaan. laakiinse hijrata ummu salama hijradeedii iyo wa zawjihaa ninkeeda lam takun sahlatan mid fudud ma noqonin, muyasaratan oo la fududeeyey kamaa khuyila say u malaynahayeen lahumaa labadooda. ma u fududaanin markaa labaad, wa innamaa kaanad waxay noqotay shaaqatan mid dhib badan, murah oo qaraar, khalafat reebtay ama ka tagtay waraa'aha gadaasheeda ma'saatan murug, ma'saad iyo dhibaato ayay dhaaftay, tahuunu jilcinaysa duunahaa sukadeeda kulla ma'saatin dhammaan wixii xumaan oo dhanba. macnaha waxay noqotay hijradii dambe madiine ay aadayeen mid ka dhib badan tii hore, murug iyo tiiraayo iyo mashaakil iyo waxyaabo fara badan ayay ku reebtay oo say u malaynayeen inay u fududaanayso oo ma fududaanin. waxayse ka tagtay murugyo iyo dhibaatooyin ay dabacsanaanayso haddii la barbar dhigo ma'saad iyo dhibaatooyin kasta marka la fiiriyo. falnatruk aan u dhaafno alkalaama hadalka aan uga baxna liummi salama ayada hadalka aan u dayno, litarwiya lanaa say noogu warisay noogu soo tabiso annaga qisata ma'saatahaa xanuunkeedii iyo dhibkii gaaray qisadeeda say noogu soo tabiso. waayo fa shucuuruhaa dareenkeeda bihaa arrintaa ay dareemaysa ayaa ashaddu daran wa acmaqu ayadaa xeel dheer, wa taswiiruhaa habkay noogu sawiri doonta lahaa ayada ayaa adaqu wa ablaq taasaa fiicanoo xeel dheer. macnaha markay ayada ka sheekaynaysa qofka dhacdada ay ku dhacday marka uu sheekaynaayo iyo qof kale markuu ka sheekaynayo isku mid ma aha. marka ayada sheekadeeda iyo sida ay noogu soo warin doonto say wax u dhaceen ayaa adaqu jilicsan wa ablaqu taasaa markaa xeel dheer. ayadaa sheekadii qaadatay umu salama qaalad waxay tidhi umu salama waxay tihi lamaa goortii cazama uu goostay abu salama cala alkhuruuji bixitaan ila almadiinati magaalada madiine uu aado, acadda lii wuxuu ii diyaariyey baciiran rati ayuu ii diyaariyey. uma kabacdi xamalanii calayhi ratigii dushiisa ayuu isaaray, wajacala wuxuu yeelay tiflanaa keenii yaraa oo salamata ahaana canugeenii yaraa ee salamana fii xijrii dhabtayda ayaa markaa lagu fadhiisiiyey. wamadaa yaquudu binaa waa dhaqaaqay abu salama asagoo nagu hogaaminaya albaciir ratigii, wahwa asagoo laa yalwi aan dhuganaynin calaa shayin shay, macnaa meelna aan fiirinaynin, toos isaga socdoo meelna aan markaa dhuganin. wa qabla an nafsila intaanaan ka bixin can makata maka hor intaanan maka ka bixin can maka ra'aanaa waxaana arkay rijaalu min qowmii rag qoomkayga ka mid ah, waa bani maqsuum, reer bani maqsuum rag ka mid ahoo tolkaygii ah ayaana arkay. fatasadduu lanaa wayna hor istaageen, marka jidkiibay naga xidheen waana hor istaageen. wa qaaluu waxay ku dhaheen liabi salama in kunta haddii aad tahay qad halabatanaa mid naga kaa qaalib noqotay calaa nafsika nafsadaada, haddaad nafsadaada annaga naga kaa adkaatoonan ku celin karin, famaa baalu imra'atika naagtaadaan haadihi ee tan ah xaaladdeeda waa maxay? haddii adiga meel kastaad u dawaafayso gabadhan maxaad u kaxaynaysaa? macnaha wahiya bintunaa gabadheennii waaye, facalamaa nadrukuka maxaan kaaga tegaynaa, maxaan kaa kuu dhaafaynaa oo ta'khudahaa aad u qaadanaysa minaa xaggeennii baad qaadatay gabadhii, wa tasiiru bihaa waxaad la dawaafaysaa oad la aadaysaa ayada bilaadi oo dhan. shalay baad xabasho gaysay, waad ka soo celisay, haddana waad sii wadaa. annagu gabadha waxaan kuugu darnay bay ula jeedaa inaad dhaqatood meel la degto, laakiin inaad warwareejiso meel kasta aad la aadda macnaha ma rabno. saa darteed gabadheennan maxaan kaagaga tegaynaa,
oo aad xaggeena ka qaadatay oo aad la aadaysid bilaadii adduunka. uma wafabuu calayhi way ku soo boodeen waintasacuunii minhu way iga fujisteen oo way igala siibteen intizaacan siibasho. way qaateen macnaha intay ku soo boodeen bay ani ifujisteenay iqaateenoo asaga xaggiisay ka soo fujisteen. ayagaa iqaatay waa qoomkaygii. wamaa in ra'aahum maba ay arkin haddana qowmu zawjii ninkayga tolkiisii banu cabdilasad, reer bani cabdilasad buu ahaaye, ya'khuduunanii inay iqaateen ana wa tiflii ani io tolkay, ma aniyo canugayga markay dadkaygii iqaateen reer bani cabdilasad oo ninkaygii dadkiisii ahaana, xataa gadibuu ilaa ay xanaaqeen ayagana ashadda algadabi xanaaqtan u daran bay xanaaqeen. wa qaaluu waxay dhaheen laa wallaahi maya allaan ku dhaaranaye laa natruku alwalad canuga uga tegi mayno cinda saaxibatikum gabadhiina agteeda, bacda an intasactumuuhumaa markii aad gacantiisa ka bixiseen oad ka siibateen min saaxibinaa saaxiibkeennii intizaacan siibasho. haddaad gabadhiinnii wadateen annaguna canuga idiin dhaafi mayno, fahuwa ibnunaa waa wiilkeennii, wa naxnu awlaa bi annagaa ku owliyaysan baa la yidhi. ninkii dadkiisana dhinacaasay istaageen, gabadhiina tolkeedii baa watay. tolkiisii intay soo boodeen bay dheen ayagana haddii saaxiibadiinii aad wadateen annaguna waladkeediin dhaafi mayno, waa inaadna siisaan canuga, waayo canugeennii waaye, fahuwa ibnuna wa naxnu awlaa bihi annagaana ku owliyaysan. uma tafiquu waxay guda galeen yatajaadabuuna tiflii canugayga inay kala jiidjiidanayaan, kii yaraayee salamo baynahum dhexdooda. raggii reer bani cabdilasad iyo reer maqsuumi yaa canugii isku haysta marka, kuwaana way jiidayaan kuwaana way jiidayaan, calaa mashhadin meel mashhad ahoo minii xaggayga ii muuqata, meel aan arkaya canugayga laysku haystaa. xataa khalacuu ilaa ay siibteen yaddahu gacantiisa, wa akhaduu ay markaa qaateen. wiilkii ama abusalama dadkiisii ayaa wiilkii la tegey. wa fi laxadaatin daqiiqada dhexdooda, laxadaat, wajadtu waxaan helay nafsii nafsadayda mumazaqata ashamli, mumazaqa in la googooyey ashamli wada jirkii, dadkeennii wada jiray hal qoys ahaa waana la kala googooyey. waxiidatan fariidatan baan helay bay tii laxadaad keligii inaan markaa noqday. fa zawjii ninkayga ittajaha wuxuu iska aaday ila almadiinati magaaladii madiina, firaaran asagoo la baxsanaya bidiinihi wa nafsihi diinkiisii naftiisa. odaygii halkaasuu aaday. wa waladii canugeeyi ikhtadafa waxaa dafay banu cabdilasad, reer bani cabdilasad oo min bayna yadaya hortayda muxataman lagu burburiyey, hadiiman lagu gacan jabiyey, xataa gacan baa ka jabtay kii yaraa. waa la qaatay asagana, reer bani cabdilasada haystaa. amaa ana anisoo maaha, faqad istawallaa bay tidhi waxaa itawaliyo iqabsado imakaniyo gacanta igu dhigay calaya korkayga qowmii tolkayga banu maqsuum, reer bani maqsuum aw qowskii wada jiray. kuna halkaasaa laga tuuray, kuna meel kale laga tuuray, kuna meel kaloo markaa aaday. wajacaluunii waxay i yeeleen cindahum agtooda, halkaa fadhinaayaa baa la yidhi, ma dhaqaaqi kartid. fafaraqa waa la kala geegeeyey baynii baynkeygii wa bayna zawjii zawjkayga iyo wa bayna ibnii wiilkayga fii saacatin daqiiqad. wakti yar ayaa lagu kala qaadqaaday. wa mundu daalika alyowm maalintaa laga bilaabay tiri umu salama, jacaltu waxaan guda galay akhruju inaan soo baxo kulla khadaatin subax kasta ila alabtaxi, bannaanka makaan soo fadhiisanaya bay tiri abtaxa. faajlisu waan fadhiisanayay fi lmakaani makaankii alladii makaankaasoo shahida uu ka dhacay ma'saatii xanuunkaygii, dhacdadaa ma'sadii xanuunka badan ee dhibaatada badan meeshii ay ka dhacday ayaan fadhiisanaya subax walba. wa astaciidu waxaan ku soo celcelinaya maskaxdayda suurata alaxadaati, qaabkii iyo suuraddii daqiiqadihii allatii xiila la kala dhex galay fiiha daqiiqadaa dhexdeeda baynii baynkayga wa bayna waladii waladkaygii wa zawjii ninkayga. waadallu waxaan ahaanahayay abkii mid oysaa xataa yuqiima calaya alleyl, ilaa habeenku i daboolo, ilaa habeenku uu mugdiyo uu soo galo, meeshaasaan fadhinaayay. maqribkii marka la gaaray qoraxdu dhacdo gurigii bay ku laabanaysaa. subaxii waaga markuu baryo barteedii bay soo fadhiisanaysaa, way ooynaysaa. wa baqiitu waxaan ku sugnaa calaa daalika arrintaas sanatan, hal sano, aw amase qariiban min sanatin, wax sano u dhow. ilaa an mara bii, ilaa uu isoo maray aniga rajulu nin oo min bani cammii ilma adeeraday ah,
wiilaan ilma adeernahay baan soo maray meesha faraqa lixaalii xaalkeygii buu u qalbi jilcay faraqa wuu naxariistay oo wuxuu noqday nin aad u beer jilcay xaaladayda wa raximanii wuu ii naxariis dalbay wa qaala libanii qowmii qoomkayga dadkoodii baa wuxuu ku yidhi alaa tudliquuna maad iska sii daysaan haadihi almaskiinata maskiintan iska sii daaya faraqtum waad kala geegeyseen baynahaa ayada iyo wa bayna zawjihaa ninkeeda wa bayna waladihaa iyo canugeeda wamaa zaala kama uusan suulin bihim ayaga yastaliinu inuu jilcinayo quluubahum qulubtooda war maskiin waaye war saa waaye way ooynaysaa wuu ku celceliye wuu qalbi jilciyey wayastadiru inuu salaaxayo caطafahum naxariistooda inuu sidaar ku samaynayo uu rabo in cadfi iyo naxariis qalbigooda uu galo wayastadiru uu shubayo ay wa timaada naxariis ayuu u salsalaaxayay caطfahum naxariistooda xataa qaaluu lii ilaa ay ii dhaheen ilxiqii haleel bisawjiki ninkaaga in shi'ti haddaad doonto naabax bay dhaheen ninkaaga u tag oo inta naga dhaafe laakiinse kayfa lii say igu sugnaanaysaa an alxaqa inaan aadoon haleelo bisawji ninkayga fi lmadiina wa atruka aan uga taga waladii canugayga wa fildata kibadii baarkayga gobolkiisa fii makata maka aan uga tago cinda bani cabdilasad reer bani cabdilasad agtooda ma bixi karaa bay tiri ani marka hooyaan ahay canugaygii maan uga tegayaa beerkaygii gobolkiisa reer bani cabdilasad waa maya kayfa yumkin say u dhici kartaa an tahda'a lii inay ii sugnaatay i dejiso lii aniga lawcada macnaha waa murugta marka qofka aad shay aad yaad ugu faraxdood ka murugto leanna canugeeda way jeceshahay jaceylka ay jeceshahay murugtiisa iyo xanuunkiisa say iiga degi kartaa bay tiri aw tarqa ama ay iiga go'aysaa licaynii indhahayga cabaratan ilin wa ana anigoo fii daari اlhijra daarta hijrada jooga wa waladii asaqiir canugeyga yarna fii maka uu joogo laa acrifu canhu shay aan waxba ka ogayn ma ii suurogeli karto mana ii cuntamayso wara'a waxaa arkay haddana bacdu الnaasi dadkii qaar ka mida ma ucaaliju waxa aan daawaynayabay arkeen oo min axzaanii murugtayda ah wa ashjaanii waxa aniga igu sugan ee dhib ah bay arkeen faraqat quluubuhum quluubtoodii ay jilicday haddana lixaali xaaladayda koox kalea haddana quluubtoodii waxaa jilicday aniga xaalkaan ku suganahay wa kallamuu waxay igala hadleen bani cabdilasad fii sha'nii arrintayda wastacdafuuhum calaya waxay sameeyeen marka naxariis dalab calaya ay dusheeda iigu naxariistaan faradduu lii waxay ii soo celiyeen ayagana waladii canugaygii salama ahaa salamaa loo soo celiyey lam asha' ma aanan doonin bay tiri umu salama an atarayafa inaan daaho oon ku dib dhaco fii makata maka inaan bal wax sii sugsugo maba doonin xataa ajida ilaa aan helo man usaafiru macahu dad aan la safroon raaco intaan ka sugoon ka helo ma doonin inaan sugo waayo faqad kuntu waxaana akhshaa mid baqda an yaxduثa inay dhacdo maa shay laysa aan iigu jirin bilxisbaani xisaabta waxaan xisaabta ku darsanaynin inay dhacaan ayaan ka baqaayay oo fa yacawiqanii ay celiyaan marka oy iga teedaan canillixaaqi haleel bisawjii ninkayga caa'iqun wax caa'iqahoo qabateeya oo na kala dhex gala tii inay dhacdaan ka cabsanaay bay tihi maxaa anoo sii joogo dad raadinaya lay dhahaa naa soo noqo marnabad hala soo qabtay hala fadhiisiyo taabaan ka cabsaday bay tihi marka inaan sii dahdaaho maba dooninba lidaalika sidaa darteed baadartu waan degdegay facadabtu waxaan diyaarsaday baciirii ratigaydii wawadactu waxaan dhigtay waladii canugaygii yaraa fii xijri laabtayda ama jilbahaydii wakharajtu waan dhaqaaqay bay tiro waan socday mutawajihat anoo u sii jihaysan naxwa almadiina magaalada madiina uriidu doonaya zawjii ninkayga inaan haleelo wamaa maci axad qof ila socdana ma jiro oo min khalqi illaahi ilaahay khalqigiisa ka mida subxaana wa tacaala waa keligeed aniga keligay waaye bay tiri qof ila jiraaye markaa ma laha wamaa in balaqtu maanba gaarinba atanciim
tanciim meesha lagu magacaabo maka xoog uguma sii bixinba xataa laqiitu ilaa aan la kulmay cuثmaan ibnu طalxa ninka lagu magacaabo cuثmaan ibnu طalxa ninka lagu magacaabo faqaala wuxuu yidhi ilaa ayna war xaggeed u socotaa yaa binta zaadi الraakibi socotada zaadkoodii gabadhiisiiyey xaggeed u socotaa macnaha saasuu ii dhahay faqultu waxaan idhi uriidu zawjii ninkaygaan u socdaa oon doonayaa fi lmadiinati magaalada madiina qaala wuxuu idhi awamaa macaki axad qof ma kula socda miya ma keligaabaa tahay qultu laa maya qof ilama socdo wallaahi ila allaaha ilaahay mooye uma bunaya canug yarowgaygaan haadaa ee kana maahane wax kaloo ila socda ma laha qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa atrukuki kaa tegi maayo abadan weligay xataa tablugii ilaa aan ku gaarsiiyo almadiinata magaalada madiina anaa ku kaxaynaaya madiinana ku geynaaya uma kabacdi akhada wuxuu qabtay bikhitaami baciiri ratigayga hoggaankiisii buu qabtay xarigga raggee lagu xiro ratiga yuusaa u qabtay waاnطalaqa wuu ila tegey yahwi bii asoo igu sii hoggaaminaya asoo igu sii wada fawallaahi baan ku dhaartay tiri umu salama maa saxibtu ma raacin oo lama saaxibin rajula nin min alcarabi carabta ka mida qatun weli akrama minhu ka fiican walaa ashrafa kana sharaf badan ninkaa nin karaamo badan oo sharaf leh buu ahaa kaana wuxuu ahaa idaa balaqa marka uu gaaro manzilan manzil iyo meel la dego min almanaasili meelaha lagu nasanayo la degaya ka mid ah yuniikhu wuxuu fadhiisin jiray baciiri ratiguu fadhiisinayaa uma yasta'khiru canii waa iga dib dhacayaa marka intuu fadhiisiyo halkaasoo kale ka istaagayaa xataa idaa nasaltu ilaa aan ka soo dega can dahrii dhabarkiisa oo wastawaytu aan ku ekaadoon ku sugnaado cala alardi dhulka danaa markaasuu ilaahi u soo dhowaanayaa gaadiidkii oo xata canhu markaasuu ka furaya uu ka dhigaya raxla raradii saarneed waqadaahu markaasuu hogaaminaya uu geynayaa ilaa shajaratin geed waqayadahu fiiha markaasuu ku xirayaa saasuu ahaa maan inuu agteeda fadhiisto iyo inuu igu soo rugrugto iyo inuu saa ii qabtay ma jirin bay tiri halkaasuu iga istaaga intaan ka soo dego kabacdi baa intuu yimaado rarada ka dhigo uu kaxeeyu geedku xiraya waqayadahu fiiha geedkii uu markaa ku jilba xiraya uma kabacdi yatanaxa wuu iga fogaanayaa canii xaggayga ilaa shajaratin ukhraa geed kaluu aadaya fayatajicu fii dillahaa geedka kale harkiisuu iska seexanayaa faidaa xaana marka la gaaro ama ay soo dhowaato alrawaaxu rawaaxidii bixitaankii qaama waa istaagayaa ilaa baciiri ratigaygii buu aadayaa faacaddahu wuu ii diyaarinayaa waqadamahu ilaya wuu ii soo gelinayaa mar allaala markuu ii diyaariyo uma yasta'khiru canii waa iga dibdhacayaa haddana halkaasuu tegaa ilaa ratigii ka fuusho wayaquul markaasuu leeyahay ergeebe raac buu leeyahay faidaa rakibtu markaan koro stawaytu aan ku ekaada cala albaciir ratiga ataa markaasuu imaanayaa faأkhada bikhitaamihi hogaankuu ka qaban waqaadahu markaasuu ila kaxaynaya way hogaaminayaa nin fiican buu ahaa bay tihi ciyaal suuq muusan ahayn wamaa zaala kama zuulin yasnacu bii inuu igu samaynayo midla daalika saasoo kale kulla yowmin maalin kasto xataa balagnaa ilaa aan gaarnay balagnaa almadiinata magaaladii madiina falamaa nadara ilaa qaryatin markuu eegay uu fiiriyey qaryadii biqubaa'in quba ku tiray oo libani camr ibni cawf ay deganaayeen qaala wuxuu yidhi zawjuk ninkaaga fii haadihi alqaryati qaryadan buu ku jiraa tuuladaanuu degan yahaye fadkhuliiha galhee calaa barakati illaahi ilaahay barakadiisa ku gal uma insarafa uu iska soo gadoomay raajican asoo ku soo laabtay ilaa makata maka qadarkaas iyo dantaasuu u baxay allah u soo bixiyey subxaana wa tacaala ijtamaca waxaa kulmay ashamlu shatiid shamligii kala go'go'ay kuwii kala isku jiray oo kala go'go'ay ayaa mar labaad isugu yimid bacda tuuli iftiraaqin kala noqmaasho dheeraatay kadib waqarad way qaboobsatay caynu umu salama indhaheeda bisawjihaa ninkeedii ayay ku indho qaboobsatay wasacida waa ku liibaanay abuu salamana bisaaxibatii xaaskiisii iyo waladihi canugiisii uma intaa ka bacdi tafiqad waxay guda gashay alaxdaaثu dhacdooyinkii tamdii inay soconayaan siraacan si deg deg ah ka lamxi اlbasari sida ilbiriqsi oo kale dhacdooyin fara badan iyo axdaafii yaa haddana socotay fa haadihi midani bedrun waa dagaalkii beder baa dhacay yashhaduhaa waxaa ka qayb galay beder abuu salama wayacuudu minha wuuna ka soo laabtay maca almuslimiin
muslimiintii soo laabatuu ku jiro laguma dilin waqad intasaruu aygoo soo guulaystay nasran guul mu'asaran xoog badan oo adag wa haadihi uxudun tani waa uxud yakhuudu wuu dhex dabaashay khimaarahaa moolkeedii bacda badrin dagaalkii badr kadib abu salama wayublii wuxuu ka muujiyey fiiha uxud dhexdeeda axsana albalaa wacdaratan u fiican wa akramuhu una karaamo badan laakiinse yakhruju wuu ka soo baxay minhaa xaggeeda waxaal qad jurixa la dhaabacay jurxan dhaabac baliiqan xeel dheer dhaabac xun baa gaadhay famaa zaala kama uusan sulin yucaalijhu in la daawaynaayo xataa badaa ilaa uu u muuqday lahu nabarkii annahu asaga qad indamala inuu soo bogsanaayo inuu isku soo ururayo nabarkii inuu soo bogsanaayo ayuu markaa u muuqday laakina aljurx laakiinse dhaabicii kaana wuxuu ahaa qad rumma mid rummi ah buu noqday calaa fasaadin macnaha mid hoos ka sii qurmaayo hoos ka sii bukanaya ayuu ahaa xagga kore keliya ayuu ka ahaa mid bogsanaya laakiin hoos wuxuu ka ahaa fasaad mid fasaad ahoo waxyaabo kale iyo malax iyo waxyaabo kale ay fadhiyaan famaa labita ma daahin waa nabarkii an intaka'a inuu qarxadayba nabarkiiba hal mar bul yidhi wa alzama wuxuu laasimay abaa salama alfiraasha firaashkii wuu kici waayey wa fii maa waqti kaana abuu salama uu ahaa yucaaliju mid la dhabiibayo la daabaynaya min jurxihi dhaawiciisu qaala wuxuu ku yidhi lisawjihi naagtiisii yaa umu salamey samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo odhanaya laa tusiibu ma asiibta axadan qof musiibo ma asiibta buu yidhi oo fayastarjicu uu inaa lilaahi yeysto musiibo kugu dhacdo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun uu dhaho cinda daalika musiibadaa agteeda oo wayaquul haddana uu yidhaahdo allaahuma ilaahayow cindaka agtaadaan ixtasabtu ku ajir xisaabsanayaa musiibadayda haadihi ee tan ah haddana yidhaahda allaahuma ilaahayow akhlifnii iigu bedel khayran minhaa wax ka khayr badan ilaa acطaahu allah ilaahay waa siiyaa caza wajalla caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye qof kastoo musiibo ku dhacda oo ilaahay u carara oo inaa lilaahi yeystaa rabbina agtiisa ajir xisaabsasho u aada yidhaahda allah wax ka khayr badan iigu bedel ilah waa ugu bedela subxaana wa tacaala asagoo la daawaynaayo oo sariirta jiifou xaaskiisii arrintaa u sheegay dalla abuu salama wuxuu ku sugnaaday ama uu ahaaday calaa firaashin firaashkii korkiisa maradihi macnaha xanuunkiisii firaasha maradihi jiifkii xanuunkiisii ayaaman maalmo buu jiifay wa fii daati sabaaxin subax subxooyinka ka mid ah jaa'ahu waxaa u yimid rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam liyacuudaw suu u soo booqdo falam yakad ma sigin yantahi inuu soo gaaro inuu dhammaysto min ziyaaratihi ziyaaradiisa oo wayujaawisu uu gudbo baaba daarihi albaabkiisa daarteeda xataa faaraqa ilaa uu faaruqay abuu salama alxayaata noloshii maalintaa rasuulka uu saa u soo booqday ayuu dhintay faaqamada wuu indhalaabay annabiyu nebiga calayhi salaatu wasalaam biyadayhi labadiisii gacmood buu u indhalaabay ashariifatayne sharafta lahaa caynay saaxibihi saaxiibkii abi salama labadiisa indhood gacmihii nebiga ayuu saa ugu indhalaabay warafaca kor buu u qaaday warafaca waa qaaday طarfahu indhihiisa ila asamaa'i xagga cirka wa qaala wuxuu yidhi allaahuma kfir liabi salama ilaahyow abi salama u dembi dhaaf warfac kor u qaad darajatahu darajadiisa fi lmuqarabiina dadka muqarabiinta dhexdooda ku kor qaad wa akhlifhu allow ugu bedel oo khaliif uga dhaqo fii caqibihi cirdihiisa waa dadkuu ka tegey fi lghaabiriina haabiriinta dhexdooda bacdamaa asaga haabiriinta uu ka mid yahay uu tegey ilaahayow ciribtiisana u khaliif noqoo wax khayr ahoo wanaaga allow sii waqfir ilaahu noo dhaaf lanaa annaga iyo walahu asagaba yaa rabba alcaalamiin caalamka rabbigoodiiyow wa afsix ilaahu u waasici lahu abuu salama fii qabrihi qabrigiisa wanawir alla u iftiimi lahu asaga fiihi qabrigii gudihiisa aad buu ugu duceeyey rasuulka sal alla alayh wasalam amaa umu salama fatadakarad waxay xusuusatay maa rawaahu wuxuu u wariyey lahaa ayada abuu salama ninkeedii abuu salama markuu noolaa wixii uu u sheegay uu ka soo wariyey can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ducadii lagu ducaysanayey ee uu u sheegay abuu salama intuusan dhiman ayay soo xasuusatay
faqaalad waxay tihi allaahuma ilaahayow cindaka agtaadaan axtasibtu u ajir xisaabsaday musiibatii musiibadayda haadihi ee tan ah musiibadaan igu dhacday ilaahayow ajirkeeda xaggaagaan ka rabaa laakiinse ayadu lam tatib nafsuhaa nafteeda kuma qurux badnaanin kuma tiib noqon nafteeda oo kuma fiicnaanin waaye an taquula inay dhahdo allaahumma akhlifnii fiiha khayran minhaa wax ka khayr badan iigu beddel way dhihi weysay li'annahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd tatasaa'al mid isweyddiisaa waman casah waryaa mudan an yakuuna inuu ahaado khayran nin ka fiican oo ka khayr badan min abi salama haddaan dhaho ilaah wax ka khayr badan iigu beddel bal yaa ka khayr badan bay tihi ma jiro laakiinse maa labisad maysan daahdaahin an atammat idducaa inay ducadii dhammaystirtay laakiin waa amar iyo rasuulka ducadii uu dadka faraye way tiro waxay tihi allaahumma akhlifnii fiiha khayran minhaa ilaah wax ka khayr badan iigu beddel saasay markaa tihi markay dhammaystirtay ducadii xasina almuslimiina muslimiintii way murgoodeen aad bay u tiireen limusaabi ummi salama musiibadii ku dhacday iyo dhibkii ku dhacay bay aad ugala murgoodeen kamaa si lam yaxzanuu aysan ugu murugoonin limusaabi axad musiiboobay min qablu horay ummu salama say ugu murgoodeen musiibadeeda dad kaloo saa musiibo u gartay saysan ugu murgoonin iyo ummu salama ugu murgoodeen oo aطlaquu waxay u bixiyeen calayha dusheeda ismun magac oo ah ayma alcarabi carab agoonteedii bay u bixiyeen tii agoontoodoo carab ah ayma inta badan waa garoobtaa loola jeedaa laakiin garoobta inta badan naagaha la furaa loo isticmaalaa marka bacdamaa ayada laftigeeday garoobtun ka mid tahay oo laga dhintay haddana carab agoonteedii baa loo bixiyey id waqti lam yakun lahaa aysan ku lahayn fi lmadiinati magaalada madiina axadun qof uusan u joogin oo min dawiiha qaraabadeeda ah qof tolkeeda ka mid ah oo jooga meeshaa ma jirin hayra sibyatin sigaarin ilma yaryar maahane sibyihii carruurtii yaryaraa maahane oo ka zuqbi lqataa shimbirta xiitada la dhaho ama uunleyda ilmaheeda oo kale markaa ah ilma yaryar ahoo zuqbi lqataa shimbirta aadka u tabarta yar carruurta ee dhashay ah ama baasha uunleyda lagu magacaabo ciyaalkoodoo kale markaa ah shacara almuhaajiruuna muhaajiriintii way dareemeen iyo walansaaru ansaartii macan ayagoo wada jira bixaqi ummi salamata ummu salama xaqeeda calayhim korkooda ay ku leedahay ayay dareemeen famaa kaadad ma sigin oo uma dhowaanin tantahii inay dhammaysatay min xidaadihaa basaasadeedii ama asaydii ay ka degtay calaa abi salama ay u asaay qaadatay xataa taqadama waxaaba soo doontay minhaa xaggeeda abubakrin asidiiq radia allaahu canhu aad bay ugu dadaali jireen naagaha garoobada ah kuwa laga dhintay iyo waa la asturi jiroo maantoo kale ma aha saa darteed baa isla markii abubakar baa u yimid yakhtubuhaa asagoo u doonaya linafsihi nafsadiisa laakiin faabad way diiday an tastajiiba liطalabihi inay طalabkiisa ogolaato abubakar waxaa la yidhi raallaho waa la soo diray uma kabacdi taqadama minhaa waxaa u soo galoo soo doontay cumar bn الkhaaab radia allahu canhu haddana cumar waa kanaa faradatu aydan asna waa la celiyey kamaa radda saaxibahu sida raaxibkii loo celiyey oo kale uma taqadama minhaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kabacdi rasuulkii baa soo doonay rasuulku mar allaala markii uu soo doono u yimid faqaal lahu waxay ku tiri yaa rasuul allah rasuulkii allow inna fiya waxaa igu sugan khilaalan dabeecado iyo waxyaabo saddex ah macnaa khilaalan saddex arrimood saddex arrin oo aan ii suuragelinaynin inaan isguursano ayaa jirta fa ana anigu imra'atu naag baan ahay shadiidat اlghayra aad u hanaasa badan aad baan u masirkullahi bay tiri faakhaaf waxaan ka cabsanayaa an taraa inaad aragta minii xaggayga shay-an shay yuqdibuka ku carogeliya fayucadibanii allaahu bihi ilahna igu cadaaba subxaana wa tacaala qof iscelin karta miya haddaan naga kala arkay adiga naga kala leedahay bay tiri waxaa dhici karta inaan wax dhaho waxna aad igu aragto allaniya cadaabo waa kow wa ana anigu imra'atu naag baanahay qad dakhaltu fi sin da gashay ma yari bay tiri naag weyn baan ahay waa laba waana imra'atu naagna waan ahay daatu ciyaalin ilmo u saaxiib ah
waayo ragga marka naag ilmale ay guursadaan marka hore waxay leeyihin cunugiigii oo kale waa isaan waay adeer baan u ahay markuu dhex galana ciyaalkooda la dagaalaa soo ma aha marka tii bay u bandhigaysaa waana imra'atu daatu ciyaalin ilmo u saaxiib ahaan ahay faqaala calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi ama maa dakarta wixii aad sheegtay oo min hayratiki masiirkaaga ah hanaasuhu daawo male sidiisaba fainii adcu allah ilaah baan kuu tooga caza wajala buu yidhi kiniin iyo sharooba male soo maaha hanaasaha sidiisa waa in ilaahay laga baryo inuu kaa qaado qoftana ilaahay ka qaada subxaana wa tacaala caza wajala an yudhibahaa cankii inuu ilaahay kaa bixiyo waa kow wa ama maa dakarta wixii aad sheegto min asin da'da ah faqad asaabanii aniga waxay asiibay mil ladii asaabak wixii ku asiibay aba ma yiri buu dhahay sal alla alay wasalam waanu isku fiicannahay wa ama maa dakarta wixii aad sheegtay alciyaal ah fa inamaa ciyaaluki ciyaalii ilmahayga waa ilmahaaga waa sida loo baahan yahay laakiin hooyadaa raba ciyaalka ma rabo wax soconayaa ma aha uma intaa kabacdi taزawaja wuu guursaday rasuulu الlahi sal اله عليه wasalam min umi salma faاstajaaba allah ilaahay baa ka ajibay ducaaha baryaheedii oo akhlafahaa wuxuu ugu bedelay abi salma khayran min ka qayr badan min abi salma waayo nebi moxamed sal اله عليه wasalam iyo abi salma wax la isku barbardhigi karaa markaa ma aha wamundu dalika alyowm maalintaa laga bilaabo lam tabqa maysan noqon hindu almakhzumiyatu umman hooyo uma noqon lisalama waxdahu keligii wainamaa hadat waxay ahaatay noqotay umman hooyo lijamiici اlmu'miniin waay rasuulkaa guursaday sal اله عليه wasalam waaswaajuhu ummahaatuhum nadar allah ilaahay ha iftiimiye wajha umi salma umi salm wejigeeda fi ljannati jannada allah ku dhex ifiyo waradya canha ilaahay ha ka raadi noqdo xaggeeda waardaahaa ilaahayna ha raaligeliyo qisadii umu salme macaanayd baan meesha oga baxaynaa beritole haddii ilahay idmo waxaanu geli doonaa saxaabigii ku xigay hamaam ibnu haal balse meesha aynoo joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam